qaladaadkaasi si easy ah u qaadana qof 30 sano Mareykan joogo ayaa easy noloshiisa ka dhigay 10 years of Mareykan dhex taagnaa sharcigiisa hooyadii aabii ku keenan haystay ee sharahayay oo haaya ku soo badbaaday ma garaysaa Columbus ay ku koray Axmaras Columbus Ohio ku soo badbaaday oo gang iyo dhibaato wax kasta leh fanaan ku noqday sharciyadiisa ku gacan adeegay yaa maanta 2026 waa 2026 ayuu Minneapolis rasaasi qori qaad yey kana dhacaysa hell no one nobody serab way gaariba rasaasi waxba loo geli adoona warqadda sharciga haysanin Mareykanka oo aadan state-ka ku soo xaqiijinin kaawniga aysan ku soo siinin warqadda qoriga lagu haysto haddii qori lagu arko Mareykanka waa dambiyada ugu waaweyn haddana dalka Mareykanka waa meesha ugu hub badan ugu rasaas badan ugu qoriyo badan weey dhageysta dalka waa meesha ugu hub badan ugu rasaas badan ugu qoriyaha badan weey haddana sidaa ay tahay adoo sharci warqad aan haysanin haddii hal maarta yar rasaasta yarta maarta yarta gaarigaaga ama gurigaaga lagu arko lagu qabto dalaq waad galaysaa ilaahay ummadda kala hayo kala badbaadinayo kala qarinayo ma garanaysaan aad iyo aad oo kala leexinayo qof walba daacadnimadiisa wado Axmarasta qolada hadda arrintan ku seeraab galay uma maleeyahayo aniga asagu Mareykan waxa uma leeyahayaa muddo dheer ba soo wada galnay waqti aan hadda ahayn ma dhow waxa Mareykan ka soo bilownay aniga Axmarasta waa salaamaya saaxiibkay garaysa aweys gacmay rag badan oo khiyaare waa salaamaya waxaan ka soo bilownay Grey Island Nebraska meel Mareykan soo bilownay waa waqtigan ahayn anu Minnesota u guurnay asagana Ohio tagay nin qaladaadkaasi si easy ah u qaadana qof 30 sano Mareykan joogo ayaa easy noloshiisa ka dhigay 10 years of Mareykan dhex taagnaa sharcigiisa hooyadii aabii ku keenan haystay ee sharahayay oo haaya ku soo badbaaday ma garaysaa Columbus ay ku koray Axmaras Columbus Ohio ku soo badbaaday oo gang iyo dhibaato wax kasta leh fanaan ku noqday sharciyadiisa ku gacan adeegay yaa maanta 2026 waa 2026 ayuu Minneapolis rasaasi qori qaad yey kana dhacaysa hell no one nobody halka iga dhib duqbilow hay saaxiib horta wax walba way dhacaan cimrigaaga oo dheeraada way reer xamar ku maamaan geel dhalayna uu ku tusaa yow ninkan gabadha xaaskiisa baa dishay sawirada aad sheegaysid iyo sharciyadana dee gabadhan oo nolol kula aad wadaagteen wax walba waad kala haysaan inta badan sharciyada wax weyn oo arkin oo dadku telefoonadooda sawir kaga qaataan oo kadibna markaas ku kibkareystaan telefoonka sidoo kale xitaa liisanka sawir bay ka qaataan dadku iyo wuxuu ugu jiraa halka oo dadka family-ga ama ninkii naagtiisu way soo dirtiraan waxa ay soo dir meel heblaan jooga social-ka laga rabaa ma fahmaysa marka si yar oo fudud bay dadku wax isu dhaxmaraan loona kala hayaa waana one family dadka wax keenaa waa family-ga iyo gabadhaas horta ninka cunta caruurta u dhashay odaygana alaabtan hubkana waa loo dhigay wax laga shaqeeyay oo budget iyo hawlo lagu bixiyay oo de wadigaaba kule sharcigu waa adag yahay wax lagu qabto qofka aan waliba wax u haysan liisana anyway ninkii odayga dadka ka shaqeeyay marka xaaskiisa laga yimaado dad isaga u dhow oo ay isku qabiil hoose yihiin no dadka weyn ogaadaan horta adduunka waxa ugu xun qofka isku family-ga hoose yihiin nin dhalinyaro maalin ta hadlay oo yir galoof daba tuuran maayo aad baan ugu qosla dad badan wuu isdhiibay wixii aniga naagtayda hadii qolka daahir cali soo ay tagayso inta daahir cali soo dhoor yay guursan ba maayo ninkii ugu xarifsanaa buu ahaa ninka rag weyn oo reality-ga ku noolaado waayo yir galoof baan tuuranaya farmashikayga oo qolka daahir cali soo dhaagti ba geynaysa saa ninkii saga dhicinaya nin naagtaydiiba la joogto iskama dhicin karo de inaadeer marka ninka raga waxa jabinaya ee dilaya ama gabadhi dilaya waa qofkii nolosha dhabta la wadaagay adigu ma Soomaaliba kala iska celisaa mise ilmahaaga iyo gurigaaga ba taala aabaha caruurteeda ayada aabaha caruurta ayadoo ay dhashay ninkii aabaha u ahaa inay macnaha nolosha ila waxaan hal maalin oo TikTok wax laga sheegay macna badan ma sameeyay caruurtan mustaqbal iyo future iyo u baahan tahay in aabihii caruurta ka dhalay ay macnaha ayada hadda ma joogto somehow meelahaas ay ku maqan tahay
لكن يوسم محميد لعبوري وي somehow some reason ولا قد شقينين ما نشط تشوك إن هذا أفريقيا شوك هذا حول قلت سبعين كرتع إيه وحوين ماها أنا حتى أنا مقرر أفريقيا شوك فأنت نلاش هذه الماء يجي واحد أما يضبع أفريقيا شوك تان وحول بالك عندك كرعته فرماشي كذي دي تل كذي إيه وحوين يسلف أنا وحوين ما هتا أما وده شوك أما كلا فقادة أما كلا دركسرة أما لواكم الكلا شوك وحي تدكي وحيقول كذي وتلفون نظام وحي فرماشي ما عاجي يستطيع ماشي أقول لطاي قف كريميش شوك ترى إن هذا marka dadka sacaaya qofkii backgroundkiisa oo dhan la keeno oo inta badan reality marka Soomaalida sacaaya yaa laga keenaa wayna isweydiisaa maya ayada Yasmin iyo naaga kale oo far badan oo hadda waxa jiro niman badan oo caan ahaa ama de magac bulshada ku dhaxlaha magacooda intay xoqdeen ilmo ka dhaleen nimankii ma garanaysaay somehow some reason macna waa runta eray hadaa tirni walba markuu nolosha asaga iska wareeriyo inuu yiraahdo waa la isxiray nafteeda waa qalad ninka ragga waxa la rabaa inuu intuu isdaba qabto waxoogo yar isa jafo isagaajiyo hor u socdo nafkiisa nolol sameeysto laakiin arintan hadda Axmed Rasto rag badan ayay haysataa dhageyso haday hadal aan oranahay iga raal noqonaad meel yar oo buuri waxbaan ka soo galay hadayto Axmed Rasto markii iyo rag badan asaga lamida markay go'aansadeen inay degaan noloshooda dajiyaan oo nolol fiican sameystaan oo caruur dhaleen jacaylka caruurtooda iyo noloshooda u qabaan markay arkeen يدمر كريكاتي جبيين waxay ka doorteen macnaha wixii uu ninkan ka soo baxay ee ahaa dhalinyarnimadii iyo caanimadii iyo wixii la raadinayo ka baxay fiiri hadda Yasmin oo kala gabadhan ee Axmed Rasto caruurta u dhashay macnaha ninkeeda Soomaali ninka ugu caansan buu ahaa fanaan la jecel yahay dal iyo dibad ba sharaf iyo karaamo ku nool buu ahaa macnaha way tay kala tageen oo ma garanaysaa asagii god iyo meel ku soo caburisay tiri waliba sheekooyin magaalada waxa jiro xantu dadku ma kala inta waa la ogyahay Yasmin waxay dhahday Axmed Rasto inuu qayilo rabaa dadku jiro mikrafoon haysto aniguna ma garanaysaa nolol baan doonayaa inaan shaqaystaan doonayaa in ma garanaysaa ii kala kacdaan doonayaa waxa magaalada waxa aad tiraahdi waa lagu maqlahayaa guya guto dhash hal habeen qofka aad wax ku xamato gurigaagii reerkaaga waxa ka xamatid waxa way afarta koor duqbulo iska jooga iska soo kacayo qadka iska soo galaya waan dhageysanaya waxa maqaala inay tir ninkan uu qayilaya waa loser weeye anigu ilama jaan qaadi karo waa maray dhowr caruur ka dhashay oo caruurtiisa uu jecel yahay oo noloshiisa uu rabo oo uu gifaaf gareeyo uu yiri bal hadda adiga islaantaadii noloshaada inay nin weyn baa noqotay noloshaada wado ma garanaysaa aaba halka caloosh ka xoqanayo noqo ilmahaaga dhax fadhi korso ilmihiisu aysan jiray Axmed Rasto ma garanaysaa inay intay booday carartay magaalada Minnesota iyo Minneapolis ay tiri ninkana waa loser ma shaqaysanayo anaa wax ka dhigahayay anaa dad ka dhigahayay anaa ma garanaysaa laandheere saan weeye anigii ma garanaysaa baq qorf qoraafaad qajac nacala biin ku yaala intaad jabaatiga iyo ma garanaysaa soorta iyo balaayada karanaysaan iyo cambulada aad wax ku kaadiyo balaayo ku walaaqdaan ragooda caas noqdaan bad adiga anigu waan qurux badanahay sharaf baanahay ma garanaysaa halkan ma garanaysaa oo baahilowlo bagiyo beerkay duleere dararan fiiri ma garanaysaa ninkan uu leeyahay nolosha say kaaga maxaa dhacay say wax yihiin ilmahaaga ilmihiga jecla maalulba ku baryahayo kula walaashaydii abaay macaanay ilmaheena aan korsanno aan noolaano aan wax garanaysaa raalno saa doontaan ku yeelahaya ma garanaysaa oo baahilowlo bagiyo beerkay duleere yaan ka naxaayeeye beer cali soo dhax fadhida midgaantu dhash war xalay waxa loo yimi rumuud gal duqbilow wariyayaashan aanay nimanka fanaaniinta iyo horta nimanka fanaaniinta iyo wariyayaasha god baa u dambeeya niyo I don't know ma fakhriga iyo saboolnimada iyo waxaan ilaahay jeclayn baa xalay waxa loo yimi mid sidaas oo kale fanaanada oo Afrika joogta oo xaaladdu ku xunta iyo wariyayaal isbacsanayo nimca samriya ay hogaaminayso marka niyo inaade waxani kabigoodba waa wada dulli saaxiibka waa ka xanaaqsanahay aad uga xanaaqsanahay ma garad goosii wasanin la jira laandheera nin wuxuu ma garanaysaa aqli badan he don't deserve this wallahi billah asagii rag badan oo kale ba they don't deserve this aniga naftirkayga hadda aragtaan baritaan oo timo badan hadda timaha way ugu baxeen baa maleynaya oo timo badan oo garweyn hadda aragtaan inta iga naxaysay soo qabto soo celceliye wallahi beenna xaqiiqo dhabta
ninkii duqbilow ahaa oo aan tibajaro tagayno timaha sii daaya koofiyad ku qarinayo ama garka weynaadeen isoo qabto walaalayaalow isoo celiya qabto waryaa kaalay soo noqodhaha duqbilow hoy indhandhaha na celiya oo wiilal badan saaha lagu celceliyo ma garatay hala iscelceliyo meesha waa laisla goonaya vacation baan aaday bay ku leedahay walaalkayna waa xiran yahay harbin county baa dharkii guduudnaa loo xiray baabuur baa waxoogoo yar dalaq loo siiyey raa la isla goonaya ha noolaano raggu ha noolaadaan oo dumarkana ha noolaadaan calaykum salaam ha la noolaado kaalaya aan wada noolaano haddaan nabad lagu wada noolaado oo nabad lagu wada joogo oo ilmahaana iska koraan oo iska weynaadaan noolaadaan maxaa dhib ah waxba dhib ma ah يا وحبا ليلة سوداء ما قرأت والله هذا الويرو هذا وحيس ويا هاي وحلا ليلة سوداء ما زاد أحمد رستو وصاد دقي أوكي وكان أهل أخري إبلاريا ذهب يا حرير فيتو ويا هاي السلام عليكم أمة الصوماليات وان إذن السلام يا ملكستو أتشوكتان وانا كم مهسن وانا مهد وإدي مهد علنيا انتي كحماتي لبكير او سوغاري وحوين نما لعن الحمد لله وحان آد لاي هاي او ان عدين كارو وقت قاس aanan caddayn karin ayay ahayd waxaanan caddayn karin wayna dhammaatay waxaan kaloo u sheegayaa dadka warxumatashiilka ah inay afka kala baxaan carruurtayda hooyadood yaasmiin ma fahanta waaba iga dhuma sadarkiiya بالأخرستبل ما يدا سوقر هذا آخر ما يا لا ما سوقرت إلا فيسبوك ووذلا يهيدي ما يسمع عنها نقول ما يسمع كمان وارنتي قبل هيد كجاري نتر كذا وحوا شرفت لا صوماليات بالمدينة هو يدود ياسمين أحمد أو أخويا صوماليات أو شرف لمركة ولا شيء aan isku wanaagsannahay xushmad iyo abaalna aan uga hayo sida ay carruurtayda u xanaanayso waa aabade u xanaanaynayso fiiri waa la haystaa weeye garaadow boowe waa la haystaa baa leedahay ha cadow baa leenahay boowe ka saar يا وحي فاسره waxa waa oran bakay boowa ka saar boowe haye marka waa boowe ka saar tar macna mare eeg bi فوصل شريف بوركا بريحني وقبضنا كل ريحه شريف بوركا إن هذا ما بوه كسر بالي هذا تن يرى ولا يرى إيه ويروي إن بدأ بالآلة تشوك بوه كسر عدو بالين هلا ده تن عدو بالين فيني ويا هذا صقرة يلا قد يقول هدي تورا القد كم يسوي قد يسوي وحي فهد مع ذلك ما تكسر فوقيني إن ما أدري وين وحي فهد هرتني الله يتقب معه قفك عدي الله يستو هذا ويرا يستو وأيلا ذا وريا هو كدعوينه يهدد هذا الشيء محل الله يا ويرا وقب ونصب وكوين إلى هذيك القد كم تقول هدي سين هذا إنها وحي فهد أو بسيط كذو وإلى يوجادا وإلى بحث دوي أو بسيط كلا فريا واحد وتشيت ورا ور هيا ويا جور هيا سوبر ويني marka Soomaaliyeed anigu waxaan u sheegayaa in adeer ninka in god lagu riday waxa weeyaan naag Soomaaliyeedna oo xunna iyo nin Soomaaliyeed xunna aaminaad male marun baa sheegana misabeen dadkuna haday kala tagaan waa la isku diraa dadka kaliya ee Soomaalidu ay dibka ay leeyihiin maaragtay nin iyo naag Soomaaliyeed oo kala tagay heshiisa waligiin maaragtay ma jiro ama ninka aakhira ka xidha gabadha ama gabadha ninka aakhira ka xidha ma jiro qoys Soomaaliyeed inta kala tagaa waraa ku kala tagaa ma jiro I don't know xitaa haday wacan tahay dib baa laga tashkiiliyaa marka sala dhaana ninka noo karaan cunne mid la dumarka goortay idku gaadha taqaana ninkan maalmo hore dhan uu fiicnaa markuu guursaday markaas horta god aakhira laga xidha oo la yiri naagta kale oo amaanaya
وأديو كليا وين يقول وين بالله وأديو أول بعض أورا يكاتجي هذا ما بديهن هتو دونه كدبنا مركز يسجى آخرك على سائل هذا يدافية وناك تكلم يقول روح بدن وناك تكلم حاجة عقلك أديو لقوا فري مركاين هذا ninkan markuu guursaday baa god madow lagu riday inuu guursadana ma ahayn waxay ahayd inuu iska alaamiitay diin wuxuu dhahay 2 minute ago bay soo boos gareyn dhabaashu waa la gaarsiinaya mar hadday qolow gacanta soo gashay axmedow inaad dumaashina dhimar la hadal laakiin mar hadday annagu faraha noo soo gashay wixii aan gacanta ku hayna waa sii deynayna aadiyad ha wa faraqa ma aha wax reality way walaal waa dulmanta sababta 2026 axmed rasto 2026 in makshaad laga keeno makshaad in laga keeno amin come on wadulmanta macnaha in lagu soo waco yes way dhacdaa anaga nagu dhacdaa rag badan oo taqaano saxaabada ay arintan haystaa wana naga adagaya ma garat laakiin the reality si kala xor qofku kuma noqon karo qofku wuxuu xor ku noqon karaa in dadweynuhu ay kacaan amin wax yar oo la cadeyn karin marka leedahay hada 2 milyan soo qoran waa aqrinay وما هلك ورواني سلام السمسم ولا شيء سلام السمسم ده يحدق بلو دمان حدقتا دمان غاية عايشة كاميلا عبد الفتاح معلن دمان تواني سلام هاي أرتدق بلو نيو آدمكو سلامة معلم دقبلو صاحب هرتا وحنا بارتا فعلا لهيد أما حويسيد ولا الكيو ماكشوتكا أو هرتا إيه أرنكان وأبريل 3 واي مفهمسا أحمد رستا أوكي أحمد رستا waxa asaga oo dhaafaya stop ayaa la istaajiyay askartana waa isku ogtaa markay ku istaajiyaan qaar waa kuwa adkeyn karaan qaar kale waa iska ka fasaxi karaan taagiisu wuxuu ka aqriyay inuu qori leeyahay ma fahanti markuu ka aqriyay isla markiiba niyahow gaariga inuu qori uu leeyahay uu u diiwaan gashan yahay qori uu ninkan leeyahay ma fahanti qoriga maxaa si galwaas markay taargada gaarigaaga waa lagu darayaa see gaariga ugu qaadanaysaa qoriska ma saaran kartid raad ma fahanti okay marka انا كو شرح له macallo mood gal macal mood halo taaga iyo gaariga qoriga seelis ugu diiwaan geliyaa noo sheeg dhageysatada bidqbalo inay dhageysataa fiican haday dhageysato waa fahmaysaa ma fahmaysaa fiiri ku dhageysanayna ajib askariga markuu uu ku istaajiyo ugu horeyso kombiyuutarkiisa taargada gaarigaaga markuu ka aqriyo wax walba aad haysatay iyo sharcigaaga iyo magacaaga soo boodaa ma fahmaysaa markaas wuxuu ku yiri gaariga intuu u yimid wuxuu ku yiri qor ma haysataa haa buu ku yiri qor waa haystaa okay soo dagaa lagu yiri qoriga la soo qabtay asagina waa la qabtay qorigiis اوكي نجيب قولي مركز leedahay macna ma hadle bal u kaadiye aaway waa tusaya dib male ma qoriga rabana fahmo ma garat okay intaankiga dhaafade marka ila fahanaa rabnaa ninka waxa loo xiray la qori aan leedahay la isku xiray ajib noo sheeg okay taqbilo oo ku tusaya aday bilarisan easy way maxaa ina tusaya ajib oo ku tusayde ina wixii aad akhriso Soomaha sharcigi iyo waxa ku qoran meesha fiiri ha noqon duqbilo macnaha dadka sheekeeyo Soomaalida نجي واتسحنتها كده بجيو واحد شرط مركا قري لهدا تاجا وبراعه فيريا بل سوق فهمنا جيجي انا مو سرها له فيري halkaas ma ku qoran duqbilo انا fahansiinka qoriya leedahay hay horta waa inay fahantaa duqbilo halkaas waxa ku qoran oo lagu soo qabtay maxaa ku qoran adiga ba akhri inoo akhri gaariya wada aniga marka maxaa waaye criminal charge case criminal judge kiisa wali ma la xukumin ba ilaa uu maxkamad taga waay because waxa lagu qabtay sharciga ah kaliya 712 waxa uu yahay inuu sharci meel publica uu ku watay okay ama uu daycare u dhawaa ama meel ay dad u dhawaayeen inuu qori ku watay waay uu xukunkiisa noqonaya fahmaysaa marka okay suki marka wariye hal hor soo dhawow qof markii la qabanayo la xirahay ani hadda baabuuran wada duqbalow right now askari haduu igu shito oo traffic violation ticketkeedu isiina hadii aan qamri cabsanahay ama aan qori wato ama xashiishad aan wato they gonna arrest me because of there's a
probable cause oo dembi aan ku jiro faraha kula jiro ninkan in la xiray fanaankan xabsiga la geeyo oo magshaad laga qaado what was the probable cause maxaa lagu xiray dembiga uu jibiyey maxay tahay dembiga uu jibiyey stop uu dhaafay sooma ku dhihin okay stop is a traffic fraction I mean a traffic violation yes waa lagu istaajinaa markii lagu istaajiyo xaq wuxuu u leeyahay wax walba inuu ku weydiiyo ma fahmaysaa okay dembiga lagu qabsadayna waa fiiri qorigiisa wuxuu ka dawaan gashanaa oo haayaan ku dhahay ma fahmaysaa okay noogu haki fiiri najiibo horta fiiri ma su'aasha halka kalmadan ka weydiiyo marka booliis istaajiyo waa weydiinay wariyaha hal mar ha dhameeyo hana faasiyo less the way you want okay ay ajin ku soco ha my brother ina isfahanaa fiican markaas waa la qabtay markii la qabtay qorigaasaana lagu qabsaday waxaa la geeyey saldhigaa la geeyey sawiraa laga qaaday waa la wareystay qorigan wuxuu yiri aniga wuxuu iga duwan gashan yahay laysankiisa waa kana sharcigiisa waa kana oo haayo sharciga iyo qoriga soo federaal maaha gobolada way kala yihiin oo haayo Minnesota haddaa imaanaysid waa inaa oo haayo warqad ka soo qorataa aad u sheegtaa inaa qori wadatid oo Minnesota aa imaanaysid Minnesota markaa imaadidna kuwa Minnesota aa u sheegta waa inaa saas u fahantaan waa sidii qof probation ku jiro kale oo in officerka ka soo qaato warqad oo kale waaye ina adeer balkaadi fiiri we want to understand something wixii lacala wey fiiri wixii lagu xiray ninkan exactly ninkan waa fiiri ninkan askariya istaajiyay istoobu gooyay okay askarigi probable cause ninkan ku xiro arkay ninkii waa la jeebeeyay waxaa la geeyay saldhiga la geeyay waa la booking gareey qof markii la booking gareeyo oo sharifka process gareeyaan oo faraha laga qaado oo magshaad laga qaado qof maxkamad suga waa so no nafasi what was the reason ninkan loo booking gareeyay okay aan ku sheegay maxkamad loogu ballaminayo horta ay dhigeysada marka waa ku sheegayaaba sababta loogu ballaminayo waxaa waaye waxa uusan wadan warqadii gobolka Minnesota inuu hubkaas uu la soo aadi karo oo uu ku dhex wadan karo muusan wadan okay laakiin qorigan uu u duwan gashanaa wuxuuna uga duwan gashanaa gobolka Ohio sidaas la ajligeed kii madaxda saldhiga ka ahaa yiri okay waad iska bixi kartaa hadeertaan markaas way soo fasaxeen marka laga hadlaayo oo shalay iyo maanta iyo arkaysaan waxay dhaceen 3 bisha okay maanta ayaama waay maanta waa isniin ahayd bari waa talaado okay bisha weey waa la Monday waa laba maalin oo ninka xabsi ku jira hay hadda maanta Mondayda okay horta garad waan ku siinaa wariyaha dhamaystiran fiiri tuqbilo arrintan waxay dhacday 3 bisha sabtidii gurigiisu joogay jimcadii galabkeedii gurigiisu joogay waxa uu joogay Ishaq axadii gurigiisu joogay haddadan aan kula hadlay gurigiisu joogaa ninkaas ma fahant gabadhaas Yasmiin ah ilmaheeda ayuu u imaaday oo asaga uu aabba u yahay dartood oo uga soo tagay Ohio Yasmiin waa gabar oo xaaskiisa isqabaan ilmo wada korsadaan ayadiya safar aaday waxay tir walaalo ilmaha maadaama aan ka tagaayo qof kale way kala tageen laakiin ilmahay wada korsadaan hawees qabaana qadar waa tiri anuu confusion no fiiri waa gabar ay ilmo isku dhaleen aan ku iri oo ilmo ka dhaxeeyaan okay calafka uu dhamaada brother fiiri dadka macnaa waxa fiican in xaqiiqda ay ogaadaan oo runta ogaadaan labadaas qof maxkamadda hadda goorma loo ballamiyay Axmed maxkamadda already wuxuu marayaa adiga just maanta haduu maray ma weydiinin laakiin bari wuu marayaa ma fahant waana intaas kaliya brother wax weyn ma aha ma fahant fiiri Axmed marka waa dhamaysan marka waxa fiiri waxa duqbilow nin wax aqriyaata brother fiiri ina wax hubisaan iska baartaan anintaasaan ku taliyay ninka waa hubinay ninka inuu xiraya ognahay in gabadha Yasmiin qolka ognahay magarad everything fiiri najiib anaga waxa uu noogu shaqeynaa aqliga galay najiibow su'aasha koorta la marka waxay tahay walaa booliisku markay ku wariyo waaye garad kada isug ma booliisku markay kugu shitaan ninkan wariyo weyn waa ku badbaa sharcigi booliiska iyo nidaamkii baa dawladnimada faansanayba booliisku markay kugu shitaan hadda aniga shalay ugu shiteen meel loogu tala galay
loogu talagalay 15 ayaa waxaan ku soconayay adigu 45 kadibna markay joojiyeen ma ogtay dambiga aad ku jirtid haa waa istaagay adikaitadina waa shitay afarta xabbe la tuurayay way yimaadeen su-aasha ugu horreysay weydiye waxay dhaheen liisankaaga keen waa u dhiibi wuu la galay muddo adigu 15 daqiiqa bay iga maqnaa wuu ii soo laabtay muraayadana lama ogola inaad dalacatid waa dejiyey bartaydii baa ku jira mana degi kartid eeg inaan iswaalo maaha okay maxaad wadataa iyo maxaad sidaa iyo gaariga maxaa ku jira midna layma weydiin dembigaa ku jirtid ma ogta haa meeshay ku qoran tahay garaad ninkan waa you cannot ninkan wadanka haddeer yimid garaadka hadda wadanka yimid waxa isaga cusub waya isaag dhiga ama berri ha yimaado ama shalay ha yimaade jejeyow ninkan garaadka fikirkiisu hadlahayaaye muud gala aan dhameeyo dee marka idiga taqaanaan qaybta marka hadlo maya garaad hore u hadashay ninkaa saaxiibka waa jeje duqbilow isagana nin yaqaano aan ka dhiibano fikradda okay ninkii 15 daqiiqo kadib wuu ii soo noqday wuxuu ii keenay warqad warantiya oo tigidi ma siin warqad wuxuu soo siiyey warantiya oo waxa weeye de marra qofka tigid baa la siiya marra waran baa la siiya okay marka waxaan ka rabaa wiilkan oo kalmada ku haystaa tahay gaarigayga waxa ku jira mana uu sheegin mana weydiine ninkan qorigan uu wato iyo warqadda qoriga iyo in waxaas oo dhan la isla gaadho ilaa stop kali uu dhaafaye stoptana waxa lagu dhahayaa ma ogtay dambiga aad gashay haa waa maxay stop baan jiiday hadda ka horrata stopta aniga tigid baa lagu siiyey laftigeeda marnaba layma weydiin gaarigayga waxa ku jira marka waxaan rabnaa gaarigan qoriga ku jirayo waxaan qolada booliiska ogaatay oo saasaa macnaha loo weydiiyey xaggay ka timi inuu xitaa liisan wato iyo inaan wadaan toona garaadka ma soo dhigta aan ku sheegay horta kow adigu Minnesota bladeekaaga waa Minnesota laba asagu gaarigiisa wiilkan waa Ohio bladekiisa hadday travel license-kiisana waa Ohio maxaan difaacaynaa weeray ninkan ma la qabtay fiiris kaad waa la qabtay kaad meesha qorigan iska jaal bixinaynay ila waa waxaan anagoo dhan wada qaadanayna kaadi okay waa yahay qoriga waxaad ku qaadanaysaa iyo bistoolada waa laysinkaaga travel laysinkaaga qorigaaga marka ma gurigu ku olaya ma adag ku hubaysan ma gaarigu ku saaran yahay okay wallahi weeraa ka xatarsan waa warqada dhaqdhaqaaqa ina state kale aad u qaadan kartid qoriga ila gurigana uguma aad tagi kartid waa in aad warqada booliiska kugu dhow waa in uu ku sharciyeeyaa in aad safraysid qorigaagana aad qaadanaysaa dad sharcigaagi waa wadataa waxaagi waa wadataa aad sharciga lacala haddii statekaa kale oo dhibkaaga yimaado si self defense day aan lagu oran waxbaad weeraraysay ila warqadda caddaynta ahaa oo qorigaaga waa aad wadataay ma fahantay laakiin marka aad stateka kale la soo gashid hubka yaad raadinaysay weeye aawa warqadii dhaqdhaqaaqa marka booliska amniga aawa warqadii stateka ila state way yaan booliska aawa ila federaalkan uu ku diiwaan garaysanto liisinki adaa watee war halkaa ka qaata weera weyda way ku agaadeen weeye ninka midna ma weydiinayno suga waxba noo sheegay mood galadaan suga hal mar raal noqdaa isfahanno annagu waxaan rabnaa inaan fahanno maraykan baa joognaa ameerika ku wada nool lah dad waalwaalan ma nihin fiiriya ameerika qofka la xirahayo la iskama xiro qofna intay askar kuu timaado adoo traffic infraction ku jiro cidna dhakab jeeba dalaq xabsiga dalaq sawir dalaq fara dalaq that's not how it works the system ka America okay waxaanu ka hadlaynaa midaan qoriga barmadka la qaato aniga idin la hadla liisin baan haystaa aroo duqbulowa dad badan oo meeshan joogana liisin bay haystaan liisinka la qaata magaranaysaaye countiga ay bixiyaan Ohio iyo Minnesota iyo isteedada Mareykanka ay bixiyaanna nidaam iyo heer baa lagu bixiyaa iyo qofka inuusan dambi gelin nadiif yahay FBI-da soo cadeysay state-kana cadeeyay yabaha leysino barmad la dhahaa la siiyaa oo 5 sano Minnesota aan degana barmadkaasina
qorigaaga iyo bistooladaadii waxaagaad ku wadan kartaa conceal carry baa la dhahaa taasi isla fahanay walaalkay Axmed Rasta fanaanka weynaa ee Soomaaliyeed ee fanaanka weyn ee heesaha qaadayay ee ma garanaysa ummadda Soomaaliyeed ay jeclayd ee reer Ohio ahaa ee reer Minnesota ahaa stop buu dhaafay waana la xiray magshaada laga qaaday wax aqliga galahaya ma aha dhageysta walaalayaal dad waaweyn baan America wada deganna stop saano walaalkay Axmed Rasta dhaafay stop tiisaana markuu dhaafayna askarigii Minneapolis Police Department watay waaba xanaaqayba wuxuu yiri Axmed Rasta Ohio ka timid ma garanaysaa midgaan ku dhalay gacmaha kor u taag jeebada qalab xabsiga dalaq sawirka dalaq come on it's not mean come on do weyn baan nahay hasto inay probable cause u jiro qof lagu qabto lagu xiro in qof xorriyadiisa laga qaado oo saldhigga la geeyay America ciyaar ma hada markuu waxaan leeyahay Axmed Rasta uu taajir rabaa xaqdarra lagu xiray ها هذا الصفقة ولا شيء رالو وير قرنا أودتي بوليسكو وكو استاتيو مو نكاشكين سك قري هذا أمريكا جوجو قري قفنا شرع لاس كما قالت أحمد رأس هذا قري وتي أو مينيسوتا وليس كده وتأم أوهاي وتي أفرتني السجال ستيت كونتون وسماه ستيت أمريكا أفرت وحمرنا صدني السجال من أمريكا تاي أنا مينيسوتا إن معناها أي جيران شرعي كحيو ويقوليها كده الوضع كران أوهايو كم ده ويسكنسن كم ده إلينوي مركز لقى ريبو فلوريدا كم ده أنا هذا جوجل كجليه how many Minnesota أو conceal open carry أكو ذكرت بل هذا جليه جوجل كا أما chat GPT هذا كقرأ آخرين مركز أو جي كسب حوالي دكتور وحي ما كنت horta tuqbilo horta waa mahadsantahay wees gabadha aftiga ahaa iyadana salaam iyo weero in adeerta iyadana salaamaya iyo saaxiibkay macalinka halka uga jeedaya dhamaantiin intiina kalaba horta tuqbilo aan laba inuu kala saaro horta wiilka anigu exactly waxa lagu xiray fanaanka iyo ma garanayo iyo dadkuna Soomaalidu way iska hadal badiyeen marka arkaan in xaaladdu ka yara jirto timo ku bixeen ama wuxuun waxay yiraahdeen naagti baa ka waashay gabar haday arkaan madaxa ku soconaysan waxay leeyihiin nin baa ka waalay moogtaa Soomaalidu waxyaalahaas aad waxa moogtaa ay ka excuse ka raadiyaan oo wax iska caadiya moogta waa inta badan way waxaasi wax maartay ku dabaqaan farta markan ka soo hortay wiilku waxa lagu xiray ma aqaan tan kale sharciga ku soo hartay abwaan horta Mareykanku mar walba isba bedelaa every 1 year 6 bilood 2 sano 3 bilood isteeyada kala duwan isteeyada sharciga ka dhaxeeyay ayaga dhexdooda ah konton isteeyada sharci gaar u leeyahay sharciga ka dhaxeeyay bay ku kala tagaan sharciga kale ay ku kala fogaayeen bay isugu yimaadaan oo maartay wax badan dhex maraa hadda for example isteeyada filnooda kaaniga aan ka yimid qori hadaa wadid qoriga gaariga waad ku wadan kartaa asnoonka uusan ahayn public vehicle sida Uber ko kale ama taxiga ama Chirago oo kale haduusan ahayn gaariga qorigu kugu jiri karaa laakiin waa in qoriga iyo xabadu kala saaran tahay fiiriya waa state u gaara Minnesota sharciga male Minnesota waxay kala sharci leh haduu qof guriga kugu soo dhaco waa isdifaaci kartaa laakiin marka aragti qof guriga kugu soo dhacay hadii qofkii oo arkayna kugu soo aad ku soo baxday oo asoo ka sii cararay albaabka ay ka sii baxaya ama daaqadu ka soo galay ka sii baxaya ma dili kartid حدا حبده كله فتن فيرست مارات مدري على دبيلا قفكو كاسي عري ما حد شال وليه ها marka sharciya tarabadan baa jira hadda waxa kale oo jira fiir duqbilo assurance gaari ma qaadin jirtay hadda assurance uma baahnid ormaar booliis markuu istaajiyo wuxuu ogaanayaa in assurance gaariga uu leeyahay inuu salahayn ormaar buu ogaanay uma baahna assurance qaadid waxa kale oo jira waa sadii qorigu aad leedahay oo maaragtay uu sharci ku yahay liiska ku qaatay balayna markuu booliiska garaaco wuxuu arkayaa inaad aad owner tahay oo qori aad leedahay marka for his security purpose uu ku weydiinayo qori mooda taab kule because meesha ku arkaya moogta okay yes marka tiraadi oo ogaada liiskinkii wixii ay siisay oo state of Ohio kala timid oo ku ogaado Ohio state sharci ah in maaragtay qori inaan lagu wado oo iska dhex halkaas waxaa askariga hadii uu baaburkaaga baleedkaaga raangareeyo inaad qori leedahay oo sharciyeysata ku ogaanayaa tirsuma ina qori leedahay ku ogaanayaa mar hadaa liiskaaga ku soo qaadatay maartay conceal carry liiska ku soo qaadatay qori ku soo galatay for example waxa tagtay gaan shaabka tagtay isteeyada qaar waxay leeyihiin hadda meen soo dhakala waa arkay meel baa lagu soo maraa barmidko shuurigii waxa lagu barayaa isteeyada qaar baan lahaynba inta caadi u aadi baan shaabka ama gaan shaabka waa qori caadi oo soo gadan kartaa without adaan aadin xaliya meelaha wax lagu barbarto
شورنكي وحاسس شهادة أبو بحن ولا يا دقبلة ولا يا ها دقبلة بستولة سقاوة أنا وأنا هيستا برمد هيستا أنا ليس كم قار برمد كار كبوليس كي وطار قرا أوكي وحارب أنا فانه أسكري ومركي وهذا بلاد كي وقرعه وجارها يا إن جاري جن قف كان إنه قريه ليه وجارها يا سما أنا أمرتها أنا قري اللي هو جاري بيشور بقري جاي هيال ما قرأت أنا لكي شرع ها markuu ogaado marka forsi hees marka boolisku safety-giisa waxay ku jirtaa marka inuu ku weydiiyo qoriga ma wadataa inuu yiraahdo waa khasabba inuu qoriga weydiiyo markuu leeska ka arko inaad qori leedahay waa khasab inuu for safety purpose-kiisa ku jira waa inaad saa ogaataa boolisku cidna ma aamino boolisku inuu xataa aaminin ma garta FBI waa faan qoriga marka jijay qofka waadino baabuurkiisa wato oo maalmeedkiisa ku socdo Mareykanka in xorriyada laga qaado oo meesha xabsiga la geeyo دقبلو سؤال كلا يس هالمرة أبقى كسيني سلطان هاي كنت يا الأربعة من أوسط قصة أبتي وقسلام يا حديك تلمانت وأنا سلام يا بقرضة دقبلو وكاقعد نكير ما أنا هل وجد تورتورنا يا جراد وقسلام يا شرعية كوبناني إيشي وإنا أدنى كان boostiga la soo dhiga Hannibal County sawirkiisa la soo galiyay qof aan la xirin oo aan maxkamad suga ahayn sharciga banaan kara in sawir laga qaado sawirkiisa la boosti gareeyo. That's the question aniga aan rabay Soomaa. That's what I want to ask. waxaan waa maag shot caadi. No. Maag shot maxaa la? maag shot waa masawirka la iska qaado marka lagu xirayo. No. Listen. Give me 1 minute. Why you try 1 minute see? Okay, go back to Ninko muxuu ahaa wiilkii warayst warbaa idin sheegayaa okay waa yar baa idin sheegayaa ninkan public information wixiisu meediso saraalka okay guuleys ku soo ma adiga ma aha u kaadi boqorada su'aal taala weey ka haraara keenay waxa weey su'aal mar waa ku siina guuleys su'aasha uu ka haraara keenay is true that's war AJ ku socotaa ninkii AJ ahaa yimid saaxiibka wariyaha ahaa ee dhahayay Duqbilow wax soo baar there is no way aniga hal su'aal oo soo qabsanaya Duqbilow gabadha aftigoo isoo qaban weyday meesha buuxday hal su'aal oo soo qabanaya ma saare hadda waa maqnaa hadda soo jiibaan waxaan rabay inaan su'aal weydiiyo no second shortena wadiga aniga qolka ma qabsado in oo dib aan la soo sawiro dhahay madaxweynaha Mareykanka ayaa George no kaadi Mareykanka ka hadlayna brother ma gaanaale yani waxaan taa waxay ahayd boolisku 100 jeer bayna istaajiyaan waxay 24 hour aniga igiliyeen boolisku inaan meel dhaqaaqi karin 2 times igiliyeen sawir leegama qaadin waa la baaray wax walba laga baaray meel aan la u karantiilay sawirna ma laga qaadin ilaa xogteeda iyo sababta la ii xireeyay dambigan galay la ogaado sawir cidna kaama qaadi karto publicna kuma dhigi karta been waay qofka cadeynaha u haya halka ما كي حرارو horta fiir macallinka horta waa nin sharciyeedana meesha u socda saas ma meesha u socda qaabka ma ahayn ajiibaan waxaan rabay inaan weydiiyo su'aal ah wuxuu u soo qabsaday ninkan inuu difaaco oo dhaho wax iska hubiya ninkan dulmi baa ka galaysan every night wuxuu wataa kaasinkayga oo uu dambi ku soo oogayo oo uu leeyahay waa magafayaal niman uu wataa Soomaali ah oo leeyahay waa xiraaya sharciyadiina raadina waa idin qabanaan ajiib wuxuu qolka u soo qabsaday maadaama uu kaasinkiisa yahay Axmed Rasta inuu dhaho joojiya miya ninkan waxa qalta ku haysataan waa maxay hadda wuxuu ku dhahay intuu meelaha tago qabyaaladu waa qashin waxa dadka nooca ka dhaadhicay dadka attention-kooda ka faa'iideysta su'aal rabay inaan weydiiyo ahayd ajiibow qolka waxa uu soo qabsatay Axmed Rasta difaacadid laakiin qolkaaga markaa tagtaamo qolka kale mobilkiisa galerigiisa waxa uga buuxa sawiro niman madaxa oo Soomaaliya oo xilal meelo badan ka haya oo uu leeyahay waa tuug oo uu leeyahay gabdhay kufsadeen oo uu leeyahay waa idinku waa ku ballamana wariyaha taala leeyahay oo yeera ninka soo leeyahay ana saas tarmina awraa ajiibood maqlaysa aad waa ariga rufka su'aalaha u qabo because ariga rufka uu yeeday wuxuu yiri Duqbilow wax soo baartay hadiru yiri anigu shaki kaliya asxaabtii la joogtay shaki far badan ma gala aada haya guuleeda hay anu salaadan waa niga tagay 1 minute see hay ku soo Duqbilow su'aal fiican baad weydiisay
oo ah ninkan casekiisa waxa ku qoran oo lagu haysto waxa lagu xukumay baa la yiri statekiisu section baa la dhahaa 624.714 in the state of Minnesota. That is carrying of a weapon without a permit. Oh. You got it. Wiilka cajiib. aba ku qoran ba hadda numberka markaa gelisid numberka magaca ku soo baxaya I think duqbilow su'aal fiican lagama jawaabin. That's the case. Casekiisa saasaa ku qoran marka waa run booliisku markuu ku qabto right and ood wadatid the two things either you're carrying a registered gun ama mid aadan register any state ka dooni joog laakiin casekiisa qorta taas baa lagu haystaa ninka and that is a felony. Okay, that means markuu arkay and that's why uu yiri then you have to remain silent uu baaray uu yiri and because of that waa la kaxeeyay marka taas rabaa inaan idin sheego anu salaadan ku yar orday ku socda. Okay, waa masantahay macallin su'aalo kale ma dhigi karaa ala iskala ku madaxweynaha Mareykanka Georgia lagu sawiray magshatkiis ilaa hadda uu ku jiraa dambina laguma xirin marka meeshaan dadka waa markii DUI lagu qabtay Soomahan markii DUI lagu qabtay yes maya markii dambiga markii lagu qabtay ahayd oo lagu qabtay George Bush kan ka hadlaya markuu ahaa governorka oo intuu saxta madaxweynaha noqon kulligood waa la sawiraa lagu wada qaaday marka lama sawiri karo qof ilaa ay maxkamadda la sawirayba waagi dhexdaana Trump waaba Georgia lagu sawiray Georgia ku sawiray fahmaan explain Trump markii dacwadda lagu soo oogay ee la yiri dacwadda lagu soo oogay oo la xaqiiqsaday deen prosecutor waxay dhaheen waa inaas ka soo xadirsaa xabsiga Soomaa dambigii lagu eedeeyay dambi cad oo la qodobayn karo gadaalaha laga dismiss gareeyo haddaba ninka Axmed Rastaba xariga la xiray magshaadka laga qaaday ilaa ma aniga msoo duqbilo xagiis weeye god buu kala umaleynaa weeroy qofka horta sharciga Mareykanku adoo fiiri waxa speed limit markaad meel school aad maraysid oo 10 miles over ku socotid speed limitki iyo markaa meel caadi ah freeway aad maraysid 14 baa lagu talagalay iyo markaa freewayga lagu qabto iyo freewayga markii lagu qofo over 10 miles an hour isku dambi ma tidin school sonka markii lagu qabto you trouble school sonka waa danger way waa dangerous waa marka kiisana uu ka culus yahay tigidhka kiisana uu ka culus yahay waxa kale meesha waxa lagu qoriyaa ka sii daran shurasiyada xataa kuma qaadanayaan adoo intaas oo ardaya korka ka maray jeje waa ku salaamaya horta iyo xidigta ninka saaxiibkee waaye inkastoo oo tolkiina uu yahay laakiin waa nin saaxiibkee long time dhowr iyo 20 sano soo xabiriinay laaneer legend hadda tusaalaha idin haya tusaalo hadda ninka la qabtay ninka hadda u dambeeyo la qabtay cunugii oo isheeg oo golfka dheelaayo oo madowgii iyo dheerkii iska dhaleen isheega magaciisa waxa la Tiger Wood hadda magshaadkiisu waa heli kartaa anybody who's arrested you've been arrested doesn't mean that you are guilty until proven guilty or innocent until due process waa inaa martaa but annaga fiiri dad israacdaysanayo inay qolkii soo galaan oo dhahaan qof sawir lagama qaadi karo oo sharciga soo baray in adeero ajiib hadda aadaysa aad laakiin waxba ha isqarinin in adeero adii ajiib waxdii ka dhaxay qolkaa shaqadeena ma aha No, we don't really care. Hey, adiga wayga ka anu su'aala ninka weydiiya ku dhaay. Ani madax ma jiraa taadi. hal mar inoo dejiya ka xaraar inaa Ani ma jiraa. ka xaraar hallow ii ka hallow ii ka ina aniga day waxaan dhahay
in qofkani marka la qabto oo meel laysa ka istaajiyo sawir qofka ma laga qaadaa maaqshaad ma la iska qaadaa maya anaa bas su'aasha qabo ilaa la xaqiijiyo oo meel marka la ogaado qofkan dambiga ku jiray boolisku baaraan ay meel geeyaan ay sawir ka qaadaan dadee public dhigaan fiiri hadda page-ka la soo dhigay xidigta way daawanaysaa soo dhigday inta qof la soo geliyey qof kasta dambiga lagu qabtayna waa ku qoranta waa lagu qabto qof kasta ku qoran tahay saasan weydii sawir baa laga qaaday meeqa traffic baa dhaafnaa waxaa sida shaqeeya meeqa traffic baa dhaafnaa meeqa highway na lagu qabtay marka ku badan tigid baa lagu siirayo orodka wax baa lagu dhihi weligeeyo maarka ka qaaday ما يرى الله هل ضغط وهذه سيرة مركز رعال نقض أسفهنا مركز دبيت كا هذا فهمي ولكن ورا اللي قرينا أنا هي دم لما اسمه مقلة هي والله نكا ونوقف بدل لفتكيس أجيب كوا بتوب كلا وحمد وقف ماشي هذا آخر ما أجيب توب ما والله ما علمك سافرايو هل دقيقة اوغاس سلام يا رالا اوغاس هاي دبلا horta fiid dooda meesha taala waxa weey xaraaro ma wada taraf gareynaya waxa xaraaro waa Soomaa ku socda ma hada ay raal ninka afka noo soo duubtay ajiibka ma garan هاي dhimmal macal bas waa kaftan marta waxaan ka hadlayno laga doodahay horta dadku inay fahmaan fiican annagu cidna lama jirno laakiin wixii public ay yimaado walaalayaalow ka raali noqdo wixii public yaalo waa public demon baa la yiraahdaa public yaalaan anoo duqbalow barito wax ma akhrisaadi barito wax bartay baa tafiiri page-ka waxa tagtaa Somali Minneapolis tag waxa ku jirta macal gabdho gabdhaha maxaa loo soo geliyay fiiri gabdho Soomaaliya ugu yaraan hani become fiiri adiga waxa gelisaa Somali Minneapolis kali waxa ku jirta gabdho maama waxa ku jirta 48 jir Soomaaliya way buuxda meesha oo la soo dhigay weegan waay ma fahanti صح cid ka hadlaysa oo dhahaysa gabadhan maxaa loo soo waray maaragti waana la falanqeynaa qolka baalkii wax garad qolkiisa lagu falanqeynaa إلا حكمال قبل رواية لسه متلي بكون ترى حكمال fiiri ba ka buuxa ninkan salaamto marka adiga ku dhahayo xubi aniga aynoon dadka lama gaada been ma laga sheego macnaha waa isku qabiil waa maraxan qolkiisu tagaa boqol sawiro haya anuu maanta igu haystay boqol sawiro haya wuxuu leeyahay xitaa wuxuu shidaa uu leeyahay dad intuu soo aruuriyo kay xaraara waxa dhahdaa wuu ikufsaday ninka dhaqamada sameeyo waa rasuulilaahi ku dhaxaraare anigu ninka isku meel ba ku sukarna saaxiibana hadda wuxuu soo duubanaya wuxuu ku leeyahay waa kulushahay waan hayaada fiiri caawa inuu soo galo uu yiraahdo dubbalow horta wuxugo saaxiibka ajiib nin wariyo oo waliba idaacada waaweyn ka soo shaqeeyay way ka xaraaro dhimale meel kale aska artay ma malen dhimale anaana xalinahay arinta ma garad ajiibna wana saaxiibanahay wanina macaraha qabyaaladii arrimahan aad uga foga laakiin odaygan Axmed ah waa la xiray dambi allaaliya dambiga uu galaba horta waa la xiray wixii lagu xirayna wuxuu askariga ku qancay ahayd aan isla fahanna fiiriya askarigii intuu ninkan baabuurkiisi istaajiyay oo magaranaysaa bilig uu ku shitay dambi allaalaba dambigii uu galaba markaa ha yaraado ha badnaado oo kadib laga shakiyey macnaha ma indhihiisa laga shakiyey ma timihiisa faraha badan baa laga shakiyey ma garanaysaa Suudaankii wax loo soo dhiibay baa laga shakiyay wuxuu doonaba askarigan he could be high ma garan askariga probable cause wuxuu helay uu ninka ku baari karo whatever ahead ninkii marka askarigii uu qabtay ee uu yiri walaalow anigu sidaadaba waa ka shakiyay hadda xamar iyo garowe iyo dawladda ka jirta labada magaalo askarta dhar cad markay qabtaan waxa kullu ka xaraaro waa ka shakiro iscadee marka askariga Minneapolis jooga hadii Axmed Rasto ku yiri walaalo waa ka shakis cadee Axmed Rasto waa la baaray whatever askarigaasi askartii kale hadda Minnesota Mareykan waa taqaanaan hal askariga go'aan ma gaari karo waana askar kala wacaa ay yimaadaan gaarigii la futagadiyo wixii la baarbaaro markii askartaasi ay dhahaan haye ninkan dambigan waan ku haynaa ku cad yahay qodobkaasaan judge gareyn karnaa Soomaha
maxkamadda waan geyn laga karnaa yaabaa waa laga yaabaa inuu hayhaato inuu cabsanaa baa laga yaabaa inuu dhagax ka dhargay baa laga yaabaa inuu xashiishad cabay baa laga yaabaa waxyaabo badan oo booliiska day walaale waxyaabo badan oo booliiska kuu qabsan karaa jira maxaa qaldan dee way la soo wadayaa soo wadayaa balfiiri horta waxaan akhriyay duqbilo sharciga waxaan akhriyay fanaanka inuu guban yahay wajigiisu inuu guban yahay baa ka muuqata dee waan ka wareegaynaa isaga fogaada xaraare هذا واحد نخري شرعي هذا شرعي واحد نخري قرية قريها واحد شرعي قرية ما درا كهر أساسية ومال في عم بندقي هذا كحيجو نعيم جيد هاي كسبه Oh my goodness ما سيفي عملي مقلية كسبه ها اوكي anigu maraykanna idilma joogo laakiin waxaan akhriyay unbaan idin sheegi karaa horta qof walba wixii lagu xidho unbaa meeshaan lasoo dhigaa waana public record wiilkaana recordkiisa anaa hadda dib u galay una fiiriyey horta DUI-na uguma qorna qofka biniaadanka dee hadduu cabo iyo ama daroogo qaatana dee waa number one thing oo dee common ah lana isku xidho lanana sheego DUI-na kuma qorna meeshaas marka taasi waaba ka tegaynaa wiilkan waxa ugu qoran probable cause kadibna waxa ugu qoran weapon in lagu qabtay marka maxaa keenaya in weaponkaasi ay askarta ogaadaan seena ku dhacday weeyaan meeshu marka waxaa dhici karta wiilkan ama inuu speed gareynayay ama inuu light dhaafay whatever the case is askarna qabteen askar markay ku qabtaanna they have a right in ay ku wareystaan hadday ku wareystaan adiguna dee qofka biniaadanka anigu I'm gonna talk to you from experience waayo dee dadkan waa la shaqeeyaa waxa weeyaan haddii mataqaanaa ama aad dee flinch garaysid dee qof xabad qarsanaya waad ogtihiin waxyaalo ama uu qarsan karaa ama somehow someway he could look paranoid for that reason askariga probable cause buu kugu qaban karayaa kuguna search gareynayaa marka uu ku search gareeyana haddii wax lagaa helo which is in the case of wiilkan fannaankeena waxaa laga helay xabad aanan register garaysnayn saas dartiis waana la bugareeyo qofka markii la bugareeyana waa qasab in laga qaado sawir and that is the reason why mugshotka looga keenay wiilkan khamrina laguma qaban DUI is the common thing siiba maraykanka dadka markii la qabto laguna xidho which is a felony asiga DUI-na nowhere does it state he was under the influence laakiin probable cause baa lagu qabtay after thatna la search gareeyey kadibna laga helay xabadda saas dartiisa ayaa loo xiray waxaa su-aasha imaanaysa marka ma dhici kartaa in tib lasoo siiyey askarta uusan lightna ama light dhaafin ama uusan khalad sameynin oo tib lasoo siiyey askarta absolutely way dhici kartaa oo that's the reason that's another probable cause oo loo search gareeyey kadibna la helay xabaddaasito marka labadaasaa dhici karta waa lasoo sheegay annaga fiiri nimcoy fanaanka wejigiisaan fiirinaynaa idhegayso maxaa gubay aabbahan hadduu caadi yahay maxaa gubay aabbahan maxaa indhihiisa soo bixiyey maxaa indhihiisa caadka ku rogay maxaa cadaabay halow aabba comfortable idhegayso balwadi meesha haddayna ku jirin aabba comfortable hadda ii kaadi hadduu aabba faraxsan yahay haday waa fanaan qashin oo dhan fanaan buu hoos tagaa day aabba faraxsan hadduu yahay day you think khamri kaliya inay tahay no dhagax xashiish geedo bakti intii la isku soo guraa isteejyada la garaade maxaa aabbahan indhihiisa ka muuqda maxaa ka muuqda maxaa caadka ku rogay walaa dhagaystade annaga waanu warwareegaynaa de weero mid kalena ku darso waan ka baxayaa dabadaba ay u kaada inaadeen aan ku jilcin garaad hadda ma waa ku siina garaad midgii baa igu soo yaacay de midgii ma garaad igu daada aniga dagaalana ku hidka weero idaade weero iga ku soco cabdirashiid waa kaaga baxayaa one second habaryarey haddii uu DUI ama dhagax qaatay ama uu khamri cabay ama uu wax sameeyey don't you think in waraaqdaas lagu soo qori lahaa weaponka laga helay plus DUI laga qori lahaa ma asxaan baa loo sameynayaa because he's fanaan
marka anigu I don't believe maybe he's tired maybe I don't know whatever it is laakiin DUI haddii lagu qaban lahaa he gets tested the minute la xidho you get tested for drugs waana lagu soo qorayaa waraaqadaha maxaa marka soo akhristay adiga ku qoran nafahasiibal dadku qodobaa meesha ku qoran baa la yiri in lagu xidhay probable cause oo tahay whatever reason ay askarta ku xireen ama nal ha dhaafo ama speed ha ku socdo askarta markay ana akhriyo samada lahayn bal suuq bal dhacay aniga ay dhedhegeyso probable cause wixii noqon kartaa door micno maya waxa way noqon kartaa lacala ma nicim walaashay waxa adigu jecesha ma qofka warqadda maxaa ugu qoran qodobaa nambaraa ku qoran Soomaa qodob hebel qodobada ma risaad garays aniga waxaan aniga dad aqoon leedahay waxaan anu iska samaystay mana sheego waxaan soo akhriyay baan ku sheegayaa oo maxaa soo akhriyay dadku inta oo maalmada arkay haye waxaan soo akhriyay waxay tahay ninkan improbable cause lagu qabtay probable cause markaad micnaheedu adigu raadisidna waa qof ama sharci dambi galay oo ama speed ha ku socdo oo askarta reason nalalka kugu shidato nalalka markay kugu shidatana waa laba shay ama inay ku weydiiso license-kaaga everything is okay aad sii socotid ama markii lagu istaajiyo askariga kaa shakiyo search na sameeyo waa fahanay waxaan ku weydiisay su'aasha waxa weeye nicimo warqadda magshaadka sawirka ninkan uu sawiran yahay midna uu sii jeedo maxaa qodobada maxaa dambiga lagu haysto ee maxkamadda loogu ballamiyay maxaa waay yes dambiga lagu xidhay kaliya waa weapon buu sitay uunan ku qornayn weaponkana waxaa looga helay probable cause dartii oo gaarigiisa loo search gareeyey DUI-na kuma qorna inuu cabsanaana kuma qorna soona mataqaanaa dambiga cabitaanka iyo dambiga qoriga midkee weyn mataqaanaa Mareykanka Amerika marka la joogo qoriga weyn ma weyne DUI da weyn no DUI da weyn hana waalna wallahi criminal way no criminal way no DUI da no afterta halo afterta DJ maxaa dhacay shay maxaa dhacay hana waalna goobta yaale hadaada DUI soo kala soo sidaynayo dayda waa criminal waa bal sugbal hana waalna waa darajada koowaad maxaa qaldande almar inoo kaadi marka raal noqdo 25 weeyaan nin walba oo telefoon baad haysataa ChatGPT-na waa ku jira waxaa tiraahdaa hebel iyo hebel yaa saxan ma garatado iswaalid DUI waa 10 years iyo maalinta adiga niyo DUI garba ma leysaa iyo anu waxaan akhriyay hubkan soo akhriyay la qaadan karo 1 minute baan ku soo gabagabeynayaa hubkan akhriyay anigu hubkan hadda akhriyay ay ninka Cabdirashiid aan dhiibahayaa niyo waxa ku qoran waan geliyay for state haddaad intaad ka baxayso to another state aadaadiso oo tusaale ahaan fanaankan wuxuu ka yimid Ohio Minnesota uu yimiday hubbu watay or the first waa inaad notice aad ku samayso federal laws enforcement oo aad ogeysiiso laba waa inayna qasnadaadu loaded ahayn oo unloaded tahay oo minus ay maran tahay saddex waa inay secure oo qorigaas yahay oo locked yahay sanduuqna ku jira waa box loogu talagalay sanduuqna waa inuu ku jiro box aanu intaasan soo akhriyay marka fanaankan maybe sida la sheegayo isagoo stopti dhaafay ama whatever violation lagu qabtay ba liisanka markii la geliyo waxaa kugu qoran haddii aad carrier tahay hub carrier waxaa lagu leeyahay ninkan waa saas qori wata waxaa lagu leeyahay xageed ka timiyo from high yes haddii aan qaldanayn ma waxa hubbaad sideetaa baa lagu leeyahay halka ku qoran iyo dadkiidan waxaadan cilmi u lahayn anigu try travel baana I'm not a legal expert wixii legal expert ka looyarada loo daay waxa adiga aad gareyn hadda isku dayday inaad fasirtid adigii maxaad u ekaanaysaa carruur yar oo macna soo akhriya ku sheegay anigu Ingiriisi u ekaanaysaa Ingiriisi waan akhriyi karnaa de walaal duqbilow waan akhrinay waxa ku qoran intaas oo shuruud waa in la timaado kow inayna loaded ahayn laba inay mataqaanaa locked oo qorigaagu yahay saddex in mataqaanaa oo box ku jiro intaaba haddii laga waayo violation baa tahay oo another state aad ku travel garaynayso
سوق مركب waxaan soo akhriyo waa وليا inta ليس ما قادتي او برمت كونسيل ما قادت هذيك عبد الرشيد may aan ma qaad laakiin hadda saan ku akhriyo Google ka saan hadda اوكي هدادن قادنودن غلاس u fariisan oo tababarkeeda qaadan wixii Google ku qoran waa wuxuu hadda JJ ku doodayo ku leeyahay DWI iyo fulan qof qori lagu qabtay waa DWI badan ku leeyahay wax la yahay ma jirto fiir in duqbilow waxaad gelin kartaa Google ka eeg hub hadaad qaadato oo to another state aadaado maxaa lagaaga baahan yahay wixii loo Ingiriis waan akhri karnaa waa fiiri way kala duwan tahay qofba macnaha dadka legal expert ka arinta garanayo macnaha qof walba oo conceal duqbilow wuu wataa wuu hubaysan yahay ani baa qofkan fiiri boqolkiiba 80 dadku way wada wataan waxaa jira istayda aad sinta xitaa ku xiran kartid istayda aad ku xiran karin baa fiiri dama indiano kale sida adiga loo qaataba indiano kale fiiri taxis kale nimanka meel walba 10 qof ka hortimaada way wataan waxa ma laga hadlayo waxaa laga hadlayaan si ku ogaan karaa boolisku day inspection qori wato maxaa sababay inspectionka ma sultan horta sultan hal naan kugu daro in traffic violation laftiisa qaarin xarig yahay horta moogtiin oo la isku xiri karo taa moogtiin horta oo haddaad ku socoto sultan faham aniga ma ka hadlaya saas maxaa ka wasqaya in la istaajotigna la maxaa sababa anaga marka wadada waa traffic violation waa ina khalad samaysiin okay in gaarigan yarka small ka ninkani watay inspection oo maro laga helo hubka maxaa sababay riiska duqbilow dadku weydiinaya saas waa systemka laga helay systemka laga helay marka hore fiiri waxa jira laysinga hadaa ku qaatay driver laysinga hadaa ku qaatay conceal carry markii laysinga oo garaaca gaarigan aad ku qoran uu ka soo baxaya